بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داوداشا قيمها هي قدرتنا نجا مدن ميل والبواد جوجتان halkani waa marqaati TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka qaybtan daawada barnaamijka waxaanu ku falanqeyn doonaa hadii Allah awood leh oo raali ka noqdo ruushka oo markan soo qaaday weeraradii ugu cuslaa ebed oo uu ku doonayo in uu ku burburiyo oo uu cagta ku mariyo dalka Ukraine hal maalin kaliya oo uu ruushka u adeegsaday Ukraine gantaalo iyo waliba weerar qarashka ku baxay $1 bilyan ay ka badan tahay waa maalin kaliya waxaan idin haynaa warbixin iyo sheeko xiiso badan oo arrimaha ku saabsan iyo dagaaladii soconayay ee dhanka Ukraine marka la soo dhawaada daawada fadlan haddaad nagu cusubtahay nagu soo bir waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka share gareyso oo la gareyso si dad badan u gaaro mahadsanid waqtiga salaada hadii lagu taagan yahay fadlan waxaan ka codsanayaa inaad soo gudato waajibaadka alle isla mar ahaantaana soo tuko oo nagu soo laabo aan badan akhrinta quraanka kariimka digriga alle tasbiixda iyo waliba saliga nabigeena maxamed nabadgelyo in xariis korkiisa ahaatee intaasina dhamaanteen ayay dan inoo tahay dardaaran kadib aynu gudagalna barnaamijkeena sida labada socotaan ruushka waxa uu dib u soo cusboonaysiiyay dagaalada iyo weerarada xooggan ee uu ku hayo dalka Ukraine inkastoo muddooyinkan dambe ama labadii bil baadaan iraahdo aan ku sii jeednay waxa ka taagan dhanka iyo waliba Falastiin iyo Mareykanka Gaza oo wararkeena iyo warbixinadeena oo dhan ay halkaasi u badnaayeen haddana waxa lama horaana in waxyaabaha jira iyo xiisadaha ka taagan dunida inteeda kale in wax un laga warhayo maadaama aan la soconno waxyaabaha kale ee aad u dhagraaricinayseen inay qayb ka tahay ruushka iyo waliba dagaalada uu ku hayo dhanka iyo wadanka Ukraine sida xogaha ay sheegayaan ruushka markan isbedel weyn ayuu la yimid sida muuqatana sanadka soo socda 2024 oo maalinta Birita ah bilaabmi doona ruushka isbedel weyn ayuu doonayaa in uu ka sameeyo dhanka iyo waliba furimaha hore ee dagaalka iyo guulo waaweyn inuu gaaro maadaama Ukraine ay ku fashilantay taageeradii ay ka heleysay dalalka reer galbeedka sidoo kalena Ukraine ay ku fashilantay in ay mar walba hesho saadka hubka ah ee ay u baahan tahay Mareykankii u deeriyay Yurubtii kale ay u deeriyeen haddana waxa ay haystaan aanu ku filneen sidoo kalena ruushka waxa laga cabsanayaa markan in uu adeegsado nuclearka tacticada ah qodobada ama sababaha soo socda ee aan idin soo sheegi doono awgood hadda maalin ka hor ruushka waxa uu qaaday weerar xooggan oo duqeena weerarkaasina waxa uu la beegsaday magaalooyin badan oo kamid ah wadanka Ukraine hal saac gudahood ayay dhammaan weeraradaasi dhaceen taasoo keentay in meelo badan ay burburaan waxyeelo xoogganna ay ka dhalato ruushka waxa uu sameeyay wax la yaab leh weerarkii maalin ka hor uu ku qaaday Ukraine wuxuu hal maalin ku bixiyay $1 bilyan waa tilmaan muujinaysa in dagaalka ruushka iyo Ukraine uu si degdeg leh u galayo waji adag oo ka duwan wajiyadii hore waxaana soo baxaya inuu ruushka digniin qarsoodi ah u diray Ingiriiska tani waxay timid markii ruushka uu ku qaaday weerarkii ugu weynaa muddo 22 bilood kadib Ukraine maalin ka hor isagoo oo duqeeyay 49 bartilmaameed oo ku yaalay magaalooyin kala duwan oo wadanka Ukraine caasimadda Kiev ayaana ku jirta waa tan mid marka ku tusaysa halista weyn ee ruushka ka soo socota ruushka wuxuu weerarkan u adeegsaday 132 gantaal oo cruise ah iyo 36 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn weerarkan wuxuu ruushka ku bixiyay $1.2 bilyan kaliya hal maalin oo kaliya laakiin Ukraine ayaa xaaladda uga sii dartay markii ay uga jawaabeen weerar ay ku qaadeen wadnaha magaalada Belgorod iyagoo adeegsanaya 5 gantaal oo plastic waxaa lagu dilay weerarkaas 10 qof oo ruush ah kuwa kalena waa lagu dhaawacay waa markii u horeysay oo sidan oo kale ay dhacdo muddada uu socdo dagaalka ee ah 676 maalin hadaba halis kale ayaa jirta ruushka wuxuu ku eedeeyay Ukraine in ay u adeegsatay bambooyinka la mamnuucay si ay u duqeeyaan Belgorod arintan ma dhici doonto jawaab la'aan yacni waa qasab ruushka in uu ka jawaabo arintan saacadaha soo aadan ama maalmaha nagu soo aadan waliba u fiirso ruushka waxa uu yiri waxa ay isticmaaleen Ukraine bambooyin la mamnuucay taasoo la mid ah jawaabteeda in uu bixin doono oo ah in uu adeegsan doono bambooyin la mamnuucay
uu adeegsan doono hubkiisa nuclear-ka ee tacticada waana tan sababta marka oo ruushka nuclear ugu adeegsan doono Ukraine hadda waxa uu tijaabiyay hal maalin oo awooda waxaana uu cagta mariyay meelo badan lama filan ay ku noqotay xitaa Ukraine intani ay dhici doonto waxa sidoo kale tani ay muujisay in ruushka u diyaarsan yahay weerar ka baaxad weyn weerarkii socday tan iyo sanadkii 2021 waxaana uu u diyaarsan yahay ruushka sidoo kale in uu qaado weerar lagu soo afjarayo guud ahaan dagaalka Ukraine ruushka in uu weerarkan qaado uu dagaalka soo afjaro sababtan u leena waxa ay tahay maadaama dagaalka uu waqti dheer qaatay ruushkana isdiyaarin badan uu soo galay waqtiyadii dagaalada la joojinayeen ay dhamaad sii marayaan oo hadda sanadkii cusbaan la galayo waxa uu doonayaa ka hor inta aan la gaarin 2 sano guurada dagaalka ruushka in guulo waaweyn uu gaaro ruushki markii hore dagaalka uu soo qaadayay ilaa caasimadda Ukraine uu imaanayay waxa uu ku soo qaaday dagaal saf ballaaran oo weyn oo hal mar la isku soo fidiyay taasoo qasaare xoogan gaarsiisay ciidankii ruushka sababta ay tahay aad ayaa loo duqeeyay meel badan oo lagu go'doomiyay dib u gurasho ayay sameeyeen xaaladdaas waa u beddelay marka waxa uu sameeyay marba gobol ayuu weerar ku qaadayay gobolkaas markii uu weeraro inta bil ay doonto ha qaadatay gobolkaas ilaa uu dhulka ka dhigo ruushka ma aanu galaynin markuu ciidamada ka safeeyo Ukraine uu saaro wuxuu dilo wuxuu qabto uu ka dhigo hubki uu ku burburiyo meeshaas ayuu qabsanayay hadda waxa la leeyahay marka istiraatiijiyadaas wax badan ayaa iska bedelay maadaama dagaalka 2 sano uu sii galay waxa uu ruushka doonayaa inuu ka faa'iideysto fursadaha ah in reer galbeedka ay u deeriyaan Ukraine oo xitaa la yiri war Ukraine iskala heshiis ruushka yani awoodii badneed iyo qarashaadkii lagu bixin waayay dagaalka oo fashil ay ku dhamaatay sidaas darteed ruushkana uu helaya dhaqaale badan maadaama dhanka BRICS uu ka yahay nin weyn oo yani lacagtii dollarka hadda challenge xoogan uu geliyay oo heerkeedu 20% hoos yani u dhacday oo waxyaabihii lagu iibsan jiray sida shidaalka kale hadda 20% ay hoos u dhacday oo hadda ruushka markii uu qabto hogaanka ururkanna laga yaabo in wax badan isbedel kale uu keeno waxay keentay marka dalal badan oo reer galbeedka ahaa in xoogaha taageerada Ukraine ay siinayeen ay joojiyaan oo ugu yaraan ay ka fiirsadaan meesha ay wax ku bixinayaan sababta ay tahay way ka daaleen sidii ay qarash ugu bixinayeen Ukraine guulna lagama gaarin Ukraine maalin walba lacag ayay doonaysaa oo waxay doonaysaa hub waxay doonaysaa in la garab istaago waana ay socon weysay dagaalkan waxa uu noqday mid daba dheeraaday marka reer galbeedkii markii ay dib isku fiiriyeen waxay yiraahdeen bal ugu yaraan ka warama haddaan iraano war wixii dhacay waaba dhaceen Ukraine iskala heshiiyay ruushka Mareykanka waxa la leeyahay xitaa waa ay diideen markan inay siiyaan sanadii ay siin jireen oo yani ay Ukraine loo siinayay inay ku dagaalamaan oo isku difaacaan marka xoogaa yar laga reebo sababta dhaqaale badan ayaa ku baxay Mareykankana wuxuu yiri waxaan iskuma awoodi karo inaan Israa'iilna taageero dagaal ku jirto aan taageero Ukraine labada arin mid ii daran ayaan dooranayaa wuxuuna doortay Israa'iil oo danihiisa oo ka dhex arko dagaalkan Ukraine haddaad la socotaan iyaga Mareykanka ayaa madaxa u geliyay iyagoo iskala heshiin lahaa oo xitaa hal magaalo aan laga qabsan hal dagaal aanu ka dhicin gobol aan laga qabsan oo gobol kale ruushka aan looga darin ayay la heshiin lahaayeen waxay dhiilaan warnaato soo ma aha ruushow mar rabno iska dhaafnay intaas kaliya heshiisa dhici lahaa Ukraine oo iska xamaalan lahayd oo hawlaheeda ayaa iska wada lahayd ruushkana dhinacaan cabsi kama uusan qabeen laakiin Mareykanka wuxuu yiri warnaato lagu daraya iska celi ha yeelina gal hore u gal maxaa ka dhacay Ukraine waa dadkeedii qaxooti ay noqdeen dhaqaalaheedu waa u burburay hadda madaxweynahoodii Ukraine waxa uu ku baryootamayaa war reer galbeedow idinka waxaan igiliyay xataa aniga ha taageerinay deen isiya lacag hal ideemiyo hub hal ideemiyo aan ku dagaalamo markaan wax noqdo ayaan iska gudi doonaa deenta xataa deenta ayuu kala yahay marka xaaladaha halkaas ay marayaan dhanka bariga Ukraine dagaaladii waa ay ka socdaan ruushkana maalinta ka dambeeyay meelo hor la ayuu ku siqaa iyadoo waliba warbaahinta ay u sii jeesatay dhanka iyo waliba Israa'iil iyo waxa ka soconaya Gaza haddana ruushka talaabooyin hor leh ayuu qaaday waxaana la filayaa isbedelo waaweyn in uu keeno iyadoo weerarkii maalin ka hor dhacayna reer galbeed badan ay dib u soo jeesteen oo yiraahdeen war ninkii ruushka ahaa intaan mashquulka ahayn ayuu yani weeraran filan soo qaaday bal maxaan ka yeelnaa bal hala shiro hal isku yimaado iyo wixii lamid ah maxay kula taaragtidaada qaybta hoose commentiga noogu mahadsanid barnaamijkan kan xiga intaan ku kulmayno nabadgelyo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.